برشلونة ayaa 7 dhibcood oo nadiif ah u jirta horyaalka wadankaasi Spain iyadoona la liigaha sanadkan ugu soo dhawaanayo si tartiib tallaabana dhankeeda ugu soo soconayo waqti maalimada Beritola wixii cadaadisa ay ku wareejisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid imaanay iska dayeen Champions League ama horyaalka ay dayeen ama labadooda ay u dagaalamaan waa wada adag oo aan sahlan isla markaana cadaadis kasta Madrid ayaa dusha laga saaraya kooxda kubadda cagta Barcelona waxaad maqli jirtay iyada oo xun ma badin karta inkastoo aad aysan u wada xumayn laakiin haddana gooshooda ayaa la gaaray isku day ayaa markaasi dhacay wax kasta ayay sameeyeen laakiin aakhirkii ma jirin wax markaa kooxda kubadda cagta ee Leganes ay ku guuleysatay laakiin waxay ahayd koox aad u dhib badan adag madax adag goosha kooxda kubadda cagta Barcelona gaaraysay halis gelisay waqtiyada qaarkii gool ka dhaliyeen laakiin markaasi offside-kii waliba qaabka uu isagu doortay ninkii Hansi Flick ahaa ayaa waxay keeneen in nadiga kubadda cagta Barcelona ay badbaado markaasi waliba goolkaasi goolka waxaana ogsoonow wuxuu ciyaartan Flick markaasi ay uga qiimo badan tahay ciyaar 5 iyo 4 iyo 3 ay ku badiyeen sababtoo ah gool iyo waxba iyo inay sidan u rafaado kooxdu waxay ku tusinaysaa ahmiyadda kulanka uu lahaa Barcelona horyaalka hadii ay ku guuleysatana saddexdan dhibcood ee halkan ka heshay ay ugu guuleysan doontaa markaasi soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro sii share garee saaxiibadiina la wadaaga waxaan falanqeyn doonaa dhammaan kulamadii kale la ciyaaray isla markaana in badan baan dul istaagi doonaa sheekooyinkii kale ee laga hadlay markaasi haddii aanu ka bilowno Bavaria waxa dhacday in nadiga kubadda cagta Bavaria iyo Dortmund ciyaar xiiso badan oo markaa dhinacyadu ay dagaalameen ayaa akhirkii waxay ku kala tageen 2 gool iyo 2 gool yani ciyaartan su'aalo badan baa laga keenay markaasi waxa markaa qiimo ahaan dilay waxay ahayd kadib markii kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen Union Berlin iyaguna barbara ay la galeen taasoo markaa dhadhankiiba beenisay markaasi dabcan labada gool Bayern Munich waxay ka kala heleen Guerrero iyo Gnabry halka Pierre iyo waliba Anton iyagu ay markaasi la ciyaareen masalna Barcelona la ciyaartid kadibna Bayern aad la ciyaartay kadibna Barcelona ay ku sii sugayso laakiin Gurasi ninkii ahaa Brand Grob Svensson markaasi Ozgan Sule Emre Can oo center back ahaa iyo Kobel intuba raggoodii shubka ahaa way u ciyaarayeen markii dambana Karim Adeyemi ayaa bedel lagu soo geliyay 81 daqiiqo markii ahayd iyadoona ninka loo keedsaday kooxda kubadda cagta Barcelona oo ay rabaan in markaasi remontada ama soo laabasho ay ku dayaan ma garan kartid Juventus lafsadeedu natiijo positive bay ka heshay markaasi kulanka Italianigu kulan baa laga ciyaaray oo nadiga kubadda cagta Juventus ma sahlanay in kulankii ciyaareen Lecce bay la ciyaareen 2 gool iyo gool guul bay iyagu gaareen ciyaar cajiib ay ahayd markaasi kulankii Lecce markaasi laakiin kulankii kale ee Saudi Arabia ka dhacay wuxuu ahaa kii Al Nassr iyo Al Riyadh dhexmaray waxaa jira xidiga maajiga ee Cristiano Ronaldo in markaas isagu dhaliyay 2 gool aan penalty ahayn mid kamid ah goolashiisana la dariso ama ay tahay tusaale markaasi Mane ayaa gool caawiyay isaga ayaana dhaliyay wiilka lagu magacaabo Ronaldo 2 gool sidaas ay jadwalka la horeynta Al Nassr ku imaanaysaa kaalin saddexaad 57 dhibcood dhibic baa markaasi ay ka sara maraysaa kooxda kubadda cagta ee Al Hilal ama Hilal ayaa sareysa kadibna Al Ittihad ayaa halka ugu sareeya taagan dabcan Al Ittihad iyadoo 7 dhibcood waxay ka sareysaa kooxda kubadda cagta ee Hilal 8 dhibcoodna waxay ka sareysaa kooxda kubadda cagta marka Al Nassr marka horyaalkan horyaal Ittihad ay qaadi doonto ayuu noqon doonaa sida hadda la tilmaamayo aad baa markaasi masalana marka xogii ugu dambeeyay marka waxay tilmaamayaan ciyaaro xiiso badan inay jireen oo unbelievable ah haddii aan soo noqono Cristiano iyo wacdaradiisa marka laga soo tago Barcelona waxay ciyaartay mid kamid ah kulamadii ugu adkaa markaan ka hadlayno Barcelona waxaad ka hadlaysaa adigu naadi sanadkan qarka u saarin ay ku guuleysto markaasi koobka horyaalka u tartamaysa Champions League finalka joogto Copa del Rey wadareemaysa marka riyadu inay tahay riyaan sahlan laakiin wax walba waxaad dhigi kartaa nasiib asaas waa sax waxa nasiibku waad u baahan tahay nasiibka laakiin kuma xambaari karo 100% kulamada 100% waa inaad ahaataa kuwa diyaarsan cajiib ah tahay maalinta ay ka xuntahay ama ka jaban tahayna waa in uu nasiibku ku badbaadin kara adiguna aad markaasi la iman kartaa markaas Barcelona waxay cajiib ku xigtay iyagoo markaas sidaas uu markaa gooshooda loo soo gaaray qatar galay kulan cajiib uu ahaa ka waran daqiiqadii ugu dambeysay markaas ama daqiiqadii ugu dambeeyay hadii uusan Martinez inta uu soo ordo tackle-ka uu sameeyay uu sameyn lahayn maxaa dhici lahaa sidoo kale
haddii aysan dhici lahayn wixii dhacay oo isku daygii marka ay ku guuleys kooxdu ay ku guuleystay offside-ka looga baxayay 2 jeer way dhacay marna gool baa lagu dhaliyay mar kalena waa la sigay labaduba offside bay ahayd marka daqiiqadii ugu dambeeyay aad bay u dhibaato badnaayeen Barcelona maanta waxay Diego Janis siisay xidigo dhowr ah ciyaarta ka hor waxaa soo baxday xog ku saabsan ninkii Gavi ahaa in lagu soo bilaabi doono laakiin macalinku waa ka dhacay Eric Garcia iyo Pedri ayuu ku soo bilaabay Fermin Lopez-na waa ka hormariyay sidoo kale Rafinha iyo Yamal afkoorana Lewandowski ayaad arkayseenba markaasi in Janis la siiyo markaasi Ferran Torres waa markii dambena la soo geliyay marka la kooxda kubadda cagta Barcelona daqiiqadii ugu horeeyay waxay isku day samaysay iyadu inay markaa gool ay dhaliyaan laakiin waxaa ka hortagtay koox adag oo markaa bahalo oo kala ah caniif ah markaasi garaafooyinkoodu ay kooxaha weyn gaarsiinayaan qaabkaasi bahalnimada ay kooxdan ay soo bandhigtay waxay keentay markaa istaraatiijiyadeeda Barcelona inay sii wado ee u dhigto isla markaana aysan degdegin markaa weliba waxaad garan kartaa Barcelona in ay ahayd ciyaarteedu ciyaar caqabad lahayd markaa طبعا برشلونة قيبتي هوري واللجو أدكي أو سيداس بكوبحين إنك استوحيتها قطر أي سمايان مركا كعضة اللي جناس قيبتي ده مركا لسان نقضي أون جول بيداليان ويلكا عجيب كا مركز ويلكا سينمز أي إسكالية أون جول بيسقوها مركا ده وحي كدم بيه برشلونة وحيلاك كل ميسي عداز دقيقة كسلا مشكلة كلا نويدش برشلونة قد وما واضح حمين لكن مشكلته إيه كحمين ده حياة لما يستركع فيرمين قادر كيسة لما نحدي كلا بيسقو صادف يا داليني بوسكاس بدري هادو هان لا وال وحو دالنا مid kamid ah goolasha saaxirka magica ee dhaliyaan waa goolashii Messi la dhigi jiray talato goolayaa la waabiyo dhulka markuu soo dhufto la biro macaan laga dul qaadi jiray waa muwala sheekaysan laha waayo waa lamsa saaxira buu leeyahay ninka Bedri marka ma sahlana inta wixii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona gool baa markaas goolkii ay dhalisay way difaacdeen daqiiqadii gabagabadii ciyaarta waxaa jirtay kubad markaasi la counter attack ahayd oo kooxdan counter attack cajiib ay ku ahaayeen loo soo tuuray Inigo Martinez uma furnayn ima inuu dilo oo ama inuu kubadda badbaadiyo laakiin tackle wuxuu sameeyay tackle-kii horyaalka waa la dhihi doonaa ubaal loo tuuray dhag ninka waxa waaye kubaddii waa ka qaaday markaa xitaa hadduu dhaafay xitaa kale ma gaari lahayn gool bay ahaan lahayd kubaddaasi marka laakiin waa badbaadiyay intaa wixii ka dambeeyay wax walbana waxay isku bedeleen in hal dhinac sheekadu ay noqoto in ciyaar cajiib ay noqdaan in markaasi waxaan sahlanayn ay noqoto marka runtii sheekooyin badan oo cajiib ayaa jiray isla markaana biliba lahaa Barcelona hadda waxay ku haysaa hogaanka 7 dhibcood oo nadiifa 63 baa la kala joogaa Madrid maalimada berrito bay ciyaari doontaa ma guuleysan doontaa mise waa halkeeda maxay samayn doontaa iyaduna waa sheeko kale oo miiska saaran laakiin asaashani Real Madrid 63 bay leedahay 70 waxa iskale adiga Barcelona marka adigu maxay kula tahay aad ma santiin si shar gareeya Barcelona horyaalkan waa qaadatay dood badan markaasi lama gelin karo si shar gareeya saxban la wadaag